inta aan ka ogahayna aan isleeyahay waa shirkii ugu faa'iidada badnaa waqtiga ugu habboon ku soo hagaagay waxaa maanta xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali iyo madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed sidoo kale shirka waxaa qayb ka ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac shirka oo dhawaan uu ilaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana maanta uu gudoominayo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ka socda waxaa markaasi madaxda dowlad goboleed iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin dhanka amniga gaar ahaan dardargelinta howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab maadaama howlgalladii ugu dambeeyay intooda badan ay hayeen kuwa ku ekaa deegaanada maamulka Hirshabeelle waxaana madaxda la filayaa inay go'aamiyaan in markaas la isku raaco in shanta dowlad goboleed ee ka jira dalka guud ahaan laga bilaabo howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab sidoo kale waxay ka hadlayaan arrimo ku saabsan dhanka abaaraha iyo sidoo gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaarta ku saameysay deegaano badan oo kamid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya madaxda dowlad goboleed ayaa shirkooda waxay sidoo kale kaga hadlayaan arrimaha ugu xasaasisan ee tahay arrimaha qaybsiga shidaalka iyo sidoo kale kheyraadka dalka waxaana xusid mudan in dhawaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee shirkadda leeyahay Coastline ee laga leeyahay dalka Mareykanka ee heshiisda la gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana hore u jirtay in maamul goboleedka qaarkood uu kamid yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madax kale ay ka soo horjeesteen heshiiskii ama lagu saxiixay arrimaha shidaalka ee dowladda federaalka Soomaaliya hore u gashay hayeeshee tan ay ka aamuseen taasina ay ka dhigan tahay in markaasi ay aad u taageersan yihiin madaxda ayaa inta muddada oo shirku u socdo ay aad u falanqeyn doonaan qodobadaasi waxaana qodobka ugu weyn ee shirkan looga hadlayo uu yahay dardargelinta howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab oo la filayo in guud ahaan si midaysan ay u shaaciyaan in hal markaasi la wada bilaabo howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab madaxda ayaa dood dheer ka yeelan doona arrimaha aan soo sheegnay ee amniga abaaraha iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan qaybsiga kheyraadka dalka waxaana sidoo kale shirka uu noqon doonaa kii ugu dambeeyay ay yeeshaan sidoo kale bilaha soo socda ayaa la filayaa in golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Banaadir in madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed markaasi ay isugu yimaadaan isla markaan ay kala hadlaan xaaladaha ugu dambeeyay ee xilligaas taagan waxaana hadda intooda badan ay kaga doodayaan dagaalada iyo howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka xogta ee Risaale TV helayso waxay sheegayaan in arrimaha la xiriira kheyraadka dalka qaybsigooda ee madaxda si aad ah kaga doodayaan qodobkaasna uu yahay qodobka ugu weyn ee inta badan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleed isku khilaafsan yihiin hore waxa jirtay khilaaf ku aadanaa dhanka maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya lacag markaasi bangiga adduunka ka timid oo gaaraysa 100 milyan hayeeshee taas ugu dambeyntii xal laga gaaray balse hadda madaxda dowlad goboleedyada qodobka ugu weyn ee isku hayaan iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu yahay arrimaha la xiriira qaybsiga kheyraadka dalka ugu weyn tahay shidaalka dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ee heshiis kula gashay shirkadda Coastline ee laga leeyahay dalka Mareykanka gabagabada waxaa la filayaa in shirka warmurtiyeed ay ka soo saaraan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada shirka golaha wadatashiga qaran ee socda madaxtooyada ee Villa Soomaaliya isla markaana war-saxaafadeedka ay kaga hadlaan arrimo ku saabsan waxyaabihii labada dhinac ay ku wada heshiiyeen waxaana shirkan isha ku haya shacabka Soomaaliyeed oo go'aanada ka soo baxay shirkaas iyo wakiilada beesha caalamka oo inta badan taageerada siiya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wararkeena ugu waaweynaa ee la xiriiray qodobada warkeena maanta ee shirka golaha wadatashiga qaran ee ka furmay Muqdisho daawadayaal waa naga intaa